way adagto oo way xanuun badan tahay markii ay ku soo wajahaan arrimo aadan filaynin. daadadkii roobkii weynaa ay dhaliyeen waxay sabab u noqdeen in webiyadii ay karkaarada jabsadaan, taa oo ay sabab u noqotay in ay ku soo bambaxaan agagaaraha webiga dadka deganaa, iskaba sii daaya in ay sii gaarto meelo ka sii fofog jiimamka webiga. haddaba guud ahaan dalkoo dhan wuu saameeyey webiga Shabeelle. iminka gaar ahaan waxaan waraysiyo kala duwan aan la sameeyey goobjoogyaal wax ka og qayb weyn ka qaatay fatahaadda uu sameeyey webiga Shabeelle, gaar ahaan degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku hareeraysan. soo dhawow mudane ka waran bal xaaladda webiga Shabeelle gaar ahaan gudaha degmada Afgooye, gaar ahaan xaafadda Aytiro. ما شاء الله وبيجا أفجوري ولا لو قاري أنت وبيجا عارك دجن ويجورين. haye bal fatahaad ankee u geystay جاري دجن قري ويجورين أنت أو عارك وبيجا دجن أن كل جورين قري جاري دجن. ma biyaha dhankani xaafadahani gediyaani dambe Aytiro miya ilaa iyo buundada mise qaybo yar webiga uu ka soo fatahay. إلا يجديها سواجرا إلا يجديها ولا شيء يجديها في دكانته ولا شيء عندنا إلا شيء يجديها في دكانته كلا يجوزي يعني إن Aytiro qaar ka mid ah in webiga saameynta u geystay oo fatahaadda lagu guuro sababteeda dhacday miya. haye webiga biyaha webiga uu wado adi ahaan markaad eegtay sidee uu kula muuqdaa webiga dib u gurasho inuu sameeyo ma laga yaabaa maadaama wax garadka magaalada aad tihiin, ama inuu sidan ka sii dara laga yaabaa. webiga maalmahan roob oo teedi labaad waxaan maqlay webiga in Ethiopia roob badan ku da'ay maqlay haye saxadka oo zaidka ah waxa soo baxay dhayo waxa ina u soo ah ma halkaasi biyo xireenka maya Ethiopia haye bal hadda idinka ahaan waxgaradkii magaalada gaar ahaan gedigaani odayaashii xaafadda Aytiro maxaa la warhayaa, maxaad qaban kartaan oo gurmasho ma sameynaysaan, isku duubni ma leedihiin oo hadda maxaa in la gudboon inaad samaysaan. والله العقيال اسكو عروريي ان دبليها دغمدا Afgooye waayi احنا صار عاركو كاني عرس اي ان اهل بلدكنا way fariisteen lacag isku عروريين صار عاركay keeneen meel walba oo maxna fiyaha ay soo baxaan door qaarika ala dhigay saas ay tahayna waa ku xog badeediye karkaaraha webiga waa soo jabsaday. هذه حب بدنه أنت كارك ماشي اللي ميل بكارك اللي برشاد البرند. هاي ولا السود وحسيت أصو وجرت أخذت التلفون كي وربعين Afgooye. بل هل كأجوكته؟ waxaan joogaa gaaraha degmada Afgooye u dhow tuulo lagu magacaabo Buuxow. haye tuulada Buuxow waa sida saameynta webiga waa maraa, webiga Shabeelle waa maraa Buuxow, bal webiga saameyn ma u geystay Buuxow oo ma ka mid yahay Buuxow magaalooyinka uu ku soo bambaxay webiga Shabeelle. sax xaafado oo webiga ay saaran yihiin ay soo bambaxeen xaafada Buuxow qaas ahaan qaybta dambe xaafada Buuxow guri fara badan ayaa ku jiraan biyo fara badan oo webiga ilaa haddana ay soo socdaan. marka biyaha webiga hadda halkay marayaan. waxay marayaan guryo ay ka mid yihiin guryahayga naftirkiisa gees ay ka marayaan oo adigaan ila hadlayo aniga kula hadlayo. haye qaar kalena waa ku jiraan iyagana haddana waa sii socdaan biyaha. marka hadda wax duuniya iyo dad baa u gaarsiiyey ma jiraa webiga. maya waxaa jiro geeda camba ay meesha ay ku wada dumeen saameyntaas ayaa jirto. hadda sida kula muuqato biyaha webiga maxay ku leeyihiin inay sii yaraanayaan ama inay ka sii dari doonaan.
mama inay kasii dara doonaan waxaana waqti dhow rajaynaynaa inaan meesha lagu sii bixi doono haddii ilaah na gaaro. haye dad iskaashaday maamul ma jiraa oo halkaasi joogo oo arrintani wax ka dhahay? maya wax maamul oo loola kaashtay ma aadan jirto. saas ay tahayna biyahana maalin walba maalinta ugu dambeysay kordhin ayaa usii saameynaysaa. haye haddaad tihiin dadkii reer buuxo maxaa in la gudboon marka inaad sameysaan mar haddii webiga uu soo banbaxay? wallahi dadka xaafada buuxa ay kusoo yihiin sida rajo ay tamaniya inaa meesha kasii guraan si meel ugu fog ay gaari doonaan webiga. aada umahadsan tahay.